هذا اللي waxay u sugnaatay Allihii noo suurtageliyay inuu nagu soo gabagabeeyo kooraskii ku horeeyay si guul leh. Sidoo kale waxaa idinku bishaareynaya inuu bilaaban doono mar dhow kooras cusub kaas oo aynu ku baran doono software-ka lagu magacaabo QuickBooks. Waxaan ku cadeynayaa haddii aad hore u qaadatay kooraskeenii ku saabsanaa software-ka P3 inaad si fudud u fahmi karto software-kan loo yaqaano QuickBooks. muuqaalkan waxaan tusi doonaa farqiga u dhaxeeya labada software ee QuickBooks iyo waliba P3 balse intaan u gudbin ku soo dhawaada muuqaalkeena. ugu horeyn farxad ay tahay inaan noqdo qofkii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee isticmaalaya laptop lagu soo sameeyay waddanka Soomaaliya. halkan waxaa kaga muuqato inay ku dhigan tahay shabadii calanka Soomaaliya kuna sii darso laptopka waxaa lagu sameeyay karaan haddii aan intaas ugu soo gudubno si kaftana ma jiro wax farqi saa'id u weyn oo u dhaxeeya labada software ee QuickBooks iyo waliba P3. farqiga ugu weyn oo la iska karo inuu u dhaxeeyo labada software ayaa wuxuu yahay in software-ka P3 uu isku geeyo hal meel dhammaan wixii la abuurayo laakiin QuickBooks-ka uu meelo kala duwan ku geeyo. farqiga kale oo la iska karo oo u dhaxeeya ayaa waxay tahay in software-ka P3 laga leeyahay waddanka Ingiriiska sidoo kale software-ka QuickBooks-kana laga leeyahay waddanka Mareykanka. waad dareemi kartaa in luqadda farqiga u dhaxeeyo iyadoo wada Ingiriis ay tahay. haddii aad arki jirtay income statement aad ku arki jirtay software-keeni hadda soo dhammaansanay ee P3-ga halkaani QuickBooks-ka lagama yaqaan waxa loo yaqaano income statement wuxuu u magacaabi doonaa profit and loss statement laakiin shaqadu waa isku shaqadii oo waa shaqadii income statement ay qaban jirtay. labadaas farqi ayaan isleeyahay way ugu muhiimsan tahay farqiyada u dhaxeeyo software-da P3 iyo QuickBooks. shaqadu waa isla shaqadii waxaan sameynaynaa series aan sameynaynaa expense aan bixin doonaa inventory aan sameyn doonaa customer aan abuuri doonaa vendor aan abuuri doonaa dhammaan shaqadu waa isku shaqadii laakiin waxay ku kala duwan tahay meesha laga abuurayo. waxaan rajeynayaa in ardayda Soomaaliyeed ay ka faa'iideysan doonaan koorskan cusub oo noo bilaaban doono mar dhow insha Allah. waa Cadbaas Xasan Nuur oo idin leh adoo dhaxal reebi karo ha noqon inta aan la tabin. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.